la soo saddexdii wataa waka hadda saddex baa ii saaran dhagaxa marka saddexda aan geyna walaalow waa kee walaal waxaa weeye waa ever dhibi 0.6 iyo wixii ka sii sareeya dhagaxu markuu yahay weeye saddexdaas dabcan ugu dambaysa saddex intaad saacadda dhaafisid haddii mataqaana natiijo qaldan ay kuu soo baxdo walaal adiga istoogtay sida ogow ha oran dhagaxan mataqaana waa anaa soo barowey ha oran qaacidadan raac walaal qaacidadaasu muhiim bay ku tahay marka walaal sidaa ku soco adoo mahadsan haddii marka mataqaana dhagaxu uu weynaado oo hadda inta aan sheegayna meeshan uu ka weynaado tusaale oo kaleeto oo gaaro 10 garaam 20 garaam maxaa samaynayaa waxaan samaynayaa walaal waxaan geynayaa mataqaana musoo tahay tusaale oo kaleeto haddii uu noqdo 10 garaam wax ka yar sida 5 garaam oo kaleeto labaan geyn doona walaal laba ayaan geyn doonaa oo qaacidadu waxay tahay dhagaxu markastoo weynaado lambarkan waad yaraynaysaa walaal lambarkan ayaad yaraynaysaa dhagaxu markastoo batana lambarka ayaad badin doontaa laakiin qaacidana hagaysa ayaa jirto oo ah saddexdaasaaba ugu badan walaal okay markastoo dhagaxu uu noqdo mid si weyn oo 100 garaam uu gaaro kaleeto iyo ka sii badan lambarkan bataataba waad baabi'in doontaa insha Allah tacaala walaal lambarkan waad baabi'in doontaa oo sanu baabi'in doonaa waxaan ka dhigayaa mataqaana masuuta sidaas baan ka dhigayaa saacadu iminka way ii shidanta ugu walaal saacadu way ii shidanta laakiin waxa aan baabiyey waxay tahay mataqaana masuuta iyadii baan dib u yar celiyo waan gaabiyey foliumkan anoo isticmaalaya ama mataqaana masuuta calaamada dheeraanta iyo gaabinta okay saacadu marka haddaan rabo inaan ku soo daro maxaan samaynayaa tartiib ayaan xagga ofka u soconayaa waa kaa intaasaan samayn doonta okay taas waa intii mataqaana masuuta dheerayntii iyo gaabintii iyo shaxdan iswaafajinteeda ayay intaa ahayd dabcan waan ku dheeray raalli hada sharaxaaduna kulliba waa muhiim oo mataqaana masuuta waa aad wax muhiim waayo saacadan markaad iibsanayso walaal meesha doonta ka iibso waxaa kuu muhiim ah in mataqaana masuuta qaacidadaas walaal